bisha Oktoobar iyo dhacdooyinkii dadka Soomaaliyeed aan ka go'in qulubtooda ee saameynta ku yeeshay. Oktoobar 4 sanadkii 2011 waxaa dhacay qaraxii lagu weeraray xarunta harkaha iyo saamaha halkaas oo lagu qarxiyay arday. 8 Oktoobar sanadkii 2020 waxaa magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida ku geeriyooday ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay dowladii madaxweyne Cabdiqaasim Salaad Xasan sanadkii 2000 ra'iisul wasaare Cali Khaliif Galeer. 12 Oktoobar sanadkii 1954 waa maalintii Soomaaliya ay yeelatay calanka buluug ah ee xidigta dhexda kaga jirto. Sanadkaasi waxaa la hindisay calanka labadii sano ee xigtana dood ku saabsaneed baa jirtay qaramada midoobay, balse 1954 markii Cabdullaahi Ciise uu tagay xarunta qaramada midoobay ayaa la ogolaaday. Bishii Oktoobar isla sanadkaasi waxaa la arkay isagoo suran fiisha Kuweerna dhismaha xarunta dowladda hoose ee Xamar. Wuxuu markaasi u dhaxeeyay calanka qaramada midoobay iyo kan Talyaaniga. Oktoobar 14 sanadkii 2017 waa maalintii ay dadka Soomaaliyeed ay waayeen ku dhawaad 1000 qof oo mar qura ku geeriyooday qaraxii ka dhacay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho. Waxaa ku dhaawacmay ku dhawaad 1500 oo qof halka ay ku burbureen hanti lagu qiyaasay malaayiin dollar. Wuxuu ahaa qaraxii ugu khasaaraha badnaa taariikhda Soomaaliya. Waxaa guri waliba oo Soomaaliyeed gaaray xanuun aan la qiyaasi karin. Caruur badan ayaa ku aaba iyo hooyo waayay halka kuwa kalena ay ku waayeen xubnahoodii ugu muhiimsanaa. 5 Oktoobar sanadkii 1969 madaxweyne Cabdirashiid ayaa waxaa toogtay mid ka mid ilaaladiisa. Sharmaake waxa uu xilligaasi booqasho ku joogay magaalada Laascaanood. Waxa uu noqday madaxweynaha kaliya ee ku dhintay gudaha dalka Soomaaliya. 5 maalin kadib dilka madaxweynaha oo ku beegan 21 Oktoobar waxaa dalka Afgambi ku qabsaday madaxweyne Jaale Maxamed Siyaad Bare iyo golihii Towrada oo dalka Soomaaliya xukumayay 21 sano.